beri baa waxaa magaalo ku noolaa ninka magaciisa waxaa la oran jiray Mahdi. Mahdi waxa uu la noolaa qoyskiisa. Maalin maalmaha ka mid ah isaga oo dhex maraya kaynta ayaa waxaa si lama filaan ah uga soo horbaxay bahal aad u madow, kaas oo aan la garanayn meesha uu ka yimi. ninkii ayaa inta uu naxay waxa uu ku yidhi, acuudu billaah, waa maxay bahalkan foosha xun? xaggee ayaad ka timi? iga horleexo aan waddada mare. ayaa isaga oo aad u naxsan ayaa uu ku yidhi. laakiin isla markiiba bahalkii ayaa ku soo booday oo waa uu ku dhegay, kadibna dhulka ayaa uu ku dhacay ninkii. xoogaa kadib markii uu ninkii jiifay ayaa uu soo miirsaday. meel allaale meel u aaday bahalkiina ma yaqaan. waa uu soo tegay, waxa uuna yimi gurigiisii. markii uu gurigiisii yimi ayaa uu xaaskiisii waxa uu u sheegay inuu maanta soo weeraray bahal, kaas oo aanu garanayn meeshii uu aaday. kadibna ninkii waxa uu aaday muraayadda si uu iskaga soo eego xagtimihii uu ku dhigay bahalku, laakiinse wax xagtina kamaanu arag wejigiisa oo wax nabar ah ma soo gaadhin wejigiisa. Mahdi ayaa aad ula yaabay arrintaa, waayo jirkiisa wax nabar ahi ma soo gaadhin, waayo bahalkuna waa uu ku soo booday oo waa uu ku habsadayba. kadibna isaga oo yaaban ayaa uu iska tegay, waxa uuna tegay gurigiisa. kadibna waa uu jiibsaday. xoogaa kadib waa uu soo toosay, waxa uuna ka soo baxay gurigii. nasiib darro, ninkii indhaha ayaa casaaday, waxa uuna isku beddelay bahal aad u fool xun, kaas oo aad ka baqasid haddii aad aragtid. waa uu qaylinayay, waxa uuna lahaa, cid iga badbaadaysa magaaladan ma jirto, qof walba waan cunayaa. isla markiiba waxa uu aaday dhankii deriskiisa, waxa uuna u tegay reerkii ay deriska ahaayeen. reerkii oo dhan qof kamaanu soo tegin. reerkii oo dhan waa uu cunay oo waa uu laastay. ninkii waxa uu isku beddelay qori ismaris ama horor. xoogaa kadib markii uu reerkii soo laastay ayaa uu soo laabtay, waxa uuna u yimid reerkiisii. kadibna waa uu seexday. subaxdii markii ay soo kaakaceen ee ay soo toostooseen ayaa waxa uu xaaskiisii u sheegay oo uu ku yidhi, waxaan aadayaa bannaanka, xoogaa ayaan maqnaan doonaa, ee guriga ha ka soo bixina, guriga ku sii jira. kadibna ninkii Mahdi ahaa oo aad u naxsan, yaaban, oo leh, waa maxay waxaan igu dhacayaa? waa maxay waxaan samaynayo? ayaa bannaanka u soo baxay. kadibna indhihii ayaa casaaday. isla markiiba waxa uu isku beddelay bahalkii qori ismariska ahaa ee aadka u fool xumaa. kadibna waxa uu tegay meel biyo ay ku jiraan. kadibna waa uu isku eegay, waxa uuna arkay wax la yaab leh oo uu ka naxay. waxa uuna yidhi, waxaan igu dhacaya waa maxay? anigu ma bahal ayaan isku beddelay? xaggee ayaa uu iga soo raacay waxani? Mahdi ma garanayo waxaan ku dhacaya, waayo markii hore isagu ma aanu ahayn dadqal ama qorismaris. waxa uu ahaa nin miskiin ah oo iska shaqaysta. kadibna waa uu soo laabtay, waxa uuna u yimi xaaskiisii isaga oo weliba aad u naxsan oo baqaya. kursi ayaa uu ku fadhiistay, waxa uuna u yeedhay xaaskiisii. kadibna waxa uu ku yidhi, igu xidh xadhiggaas, igu xidhxidh, anigu bahal ayaan isku beddelayaaye, dhaqso igu xidh inta aanan isbeddelin, ayaa uu ku yidhi. xaaskiisii oo yaaban oo leh, maxaad ka sheekaynaysaa? ayaa uu ku khasbay inay ku xidho xadhigga. kadibna waa ay ku xidhay xadhiggii. xoogaa kadibna markii uu xadhiggii ku xidhnaa ayaa uu isbeddelay, waxa uuna isku beddelay bahalkii uu markii horeba isku beddeli jiray ee aadka u foosha xumaa. xaaskiisii ayaa ka naxday arrintaa naxdinta leh ee ku dhacday xaajigeedii. kadibna waa ay naxday. isla markiiba markii uu isbeddelay ayaa uu xadhiggii iyo wixii ku xidhnaaba waa uu jarjaray oo waa uu ka booday. kursigiina meel halkaas ayaa uu ku tuuray. waa uu soo cararay, waxa uuna u yimid dadkii magaalada. kadibna dadkii magaalada ayaa uu doonayay inuu cuno. dadkii magaalada oo dhan ayaa iskugu soo baxay, waxa ayna soo qaateen budhadh iyo ulo kala duwan. kadibna waa ay garaaceen oo jilciyeen, waa ay dilayeen
raggii oo dhan ayaa iskugu soo baxay iyaga oo garaacaya ayaa waxaa meeshii soo gaadhay xaaskiisii. kadibna waxa ay raggii ka codsatay oo ay u sheegtay war ka daaya waa ninkaygii, waa uu iska ciyaarayaa ka daaya, laakiin miyaa la yeelayaa dee. kadibna waxa uu jiiday 2 ka mid ah raggii, waa uuna cararay, waxa uuna u cararay kaynta. isla markiiba waxaa madaxa dhulka ku dhufatay xaaskiisii, halkaa ayaa ay ku geeriyootay xaaskiisii. qaybta koowaad ee sheekadeennuna halkaas ayaa ay ku joogtaa. ninkii Mahdi ahaa ma soo laaban doonaa talow, mise sidaas ayaa uu ku tagi doonaa? fadlan la soco qaybta labaad.